guddiga marka horena ay muxuu ahaa hay-adda iyo wasaaradda amniga ay u soo gudbisay waa in xildhibaanadu ka doodaan in budkoodana lagu soo daro oo ay fikirkooda ka dhex arkaan xildhibaanadii maalin dhaweyta ka dooday isniintii golaha ka dooday sidaa la socoteen mudanayaal codkooda wuxuu u badnaa in wax la soxo ma jiro hal xildhibaan oo diiday ama yidhi sharci ha la celiyo ma jiro laakiin dhammaantood waxay u badnaayeen in wax la soxo especially qodobka 27 ee xasaanadda tilmaamay dhammaan sidaa la socoteen marka waxaan filayaa guddigu waa dhegaysteen xoreyntana way qortay sambalna way u tahay haddaad aragto dad meel fadhiya inta hadasho sambal ayaa laga qaataa marka taasaan rabaa waxaan rabaa marka aniga inaan ku biiriyo isla qodobkaa anigoo taagan hal arrinoo muhiim ah oo xildhibaanadu badan aysan taaban qodobkaa guddoomiye waxaa ku jira qodob khilaafaya dastuurka oo dhahaya lama cuska karo qodobka 27 muxuu ahaa fakrada 7 wuxuu leeyahay qofna kuma cadaadi kara isagoo cuskanaya hay-adda kuma cadaadi kara inuu xog ka helo isaga oo cuskanaya dastuurka qaranka ee tilmaamaya helitaanka xogta marka sharci ama xeer la soo qoray dastuurka inuu tilmaamo ama dastuurka inuu asaga ka sarreeyo qodob u sheego uu yidhaahdo lama soo cuska karo ceebay nagu tahay guddiguna ma aqaan sida ay u ilduufeen mada ahayn qodobkaas inuu soo faqeeyo isla garyaqaankuna ma ahayn inuu arrintaas oo kale soo gudbiyo qofna ayaa ku qoran meesha xogta waxaa loogu baahan karaa siyaabo kale xitaa maxkamaddii lamama soo reebin qodob istifna laguma soo darin lama dhihin ilaa markii loogu baahdo in xuquuq lagu ilaalinayo ama si garsoora loogu baahdo xitaa lama dhihin dastuurkayna sida ku cad qodobka 32 fakradiisa labaad wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay helitaanka macluumaad ay hayso dowladda ama cid kale ay hayso taas oo loogu baahdo si loo ilaaliyo xuquuq kale in la ilaaliyo ayaa loogu baahanaya marka waxaan rabnaa in qodobkaa la soxo in waxa la saxana hadda ceeb maaha ogaada waxa la soxo waa faa'iido marka qodobkaas waxaan rabnaa in la soxo waa la dhegaystay doodii xildhibaanada waa la dhegaystay sida loo badnaa weli waa sii sakan garaynaynaa waa xoojinaynaa waxaan rabnaa guddiga hadday tookada hore ilduufeen mar labaad waa ilduufnay kama yeelayno waxaan kaloo rabaa qodobka inaan ku daro isla sharcigan qodobka 7 fakradiisa 12 waxaa la tiray fakro muhiim ah annagu waxaan rabaa inaan wax qurxino maahane sharciguma diidanin saas darteed waxaan rabaa fakradaas la tiray in la soo celiyo oo ahayd u fidinta hay-adaha kale wixii xog ama xuuraan ay u baahdaan waa muhiim shaqooyinka oo looga baahan kara ayay ka mid tahay marka taa kulley waa gooni ayay u tahay laakiin middan xildhibaanaduna codkooda u badnaa xasaanaddana tilmaamaysa dastuurkiina u gafaysa gaar ahaan qodobka 27 fakradiisa 7 waxaan rabnaa in la saxo oo iyadoo lasoo saxay oo qurux badanna halkaan aan ku ansixinno insha allah aniga intaasaan rabaa inaan ku biiriyo waa mahadsantihin